markay saa soo yaacaan fiirsa ugu bilaabo maxaa iska toostoosinaysa waxbaa istoosin jamaal baa tahay waa lagu ogyahay war annaga yaab arag بسم الله الرحمن الرحيم رب صل على الحبيب محمد وعلى آل من هم كرماء رب صل على الحبيب محمد وعلى آل من هم كرماء رب صل على الحبيب محمد وعلى آل من هم كرماء ورأي صوغلا شركي مقالة قروي باساك فود قلنا يا هدي الله إدمو ولقي محوها هورتا ورنيو الشركاسي وشركة إقبدي يعني إيابي كو عدي باكا دعضي الله الصومالي هورتا محايه اكتوب بعض إلا هو حنوقب قالك عيا كلي إني بعض إلا الصومالي نبا يابطي أو بلايا قالت واتشوقنا عبد الله حانقي صاحب واكو السلامي محمد حاجي هذينا واكو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال كعيانا واحد كان عضي ورطة شركة فودة ساكي قلين إياها إن محاكو هذا قال كعيانا واحد كان عضي ها قراعان وها قدين وها عشين وبلا عرق خوغ هذا طيبا كان عضي فهم ساه محاكو حاجة لقدا دي نوبل ومحايتا ضدهم ياشا بفردياني عشان تموقفهم بلعبة إن shalayta kuwa waxay yiraahdeen jamaal horta maxaad calanka u soo xirataa calanka sultaan kii kala saaray maahan kaasaan rabaa inta noloshada ka dhiban inay saas u wataan rabaa kaasaan rabaa sababtoo isaga kaliya iska dugsanayaa anu dawladnimo iyo magaciisa iyo waxa weeye calanka Soomaalida baa aniga iyo calanka Soomaalida ma hilmaamayo weligeena waa kaan ku soo bartay weeye waa kaan nabadda ku haysan jiray waa kii laga dhabqiyay weeye laga qasayo magaciisiga marka asagan iska haysanaya قال كعيوها قراعان وها قدينها عشين باكا دعضي او محايا قال هدينا قراعان هدينا قدين هدينا عشين إمسان لها وروي سيدان كيسو داما ميدول بهدو كويما جمالو لعاقتي الصومالي اهد ملا قادنا يا جمالو محا دولدو نقدم على جمالو 5 مليون بحسو وقال سو ديدي جمالو حالا غير هالكاس waa loo qaaranta hadii loo qaarantay hada loo qaaran maxaa ka galay إمسان الله وردتك إسكندرية أو حقنا دونتا إمسان كهية قال كعيو قبل هذا ولا ورقة قال كعيو واحد أفكر وبطل وماشي أن شوقوية قرانسان إن ماشي أن شوقوية بانساس واحد يعني ما لسنا أنت ماشي مترته قبل هذا يوم أسكوبا بين هقراعن هقدين عشرين باكن عضي بالقارن بالقردين يحردين اللهم حاضر كي تبها يسته إلهي أمدان سيدان هكو داوانا ما أنت كسو قار إلهي ودان كبرينا ربي سبحانه وتعالى قادر غفور رحيم إلهي ونقو الدولة ما هينو إلهي وانا روت الشدي إلهي وانا روت الشدي بلايا إيو تشنكي مدوبا قبل كمدوك دقنان تشري للشيغي تشري أنو ما غان مد عادي يمد مدو قوري سواكلا برتينا با أمدا أوت الشدي تشنكي عدايا تشنكي مدوبا قردان واحد ما قردان ها تشنكي عدورا ها خردان مغلي جري ما فاهم سان إلهو مدان والله تشدي أدو كسو قار إيادونا محاكور هذا إيادونا إلهي هو تشنوي داد كانوا تشنوايين هو اسمغلي وايين أو وحبا وحضرنا يو وحفي عن يو وكرسا دباتضو يو وكلا قرن وايين waxay noqdeen xoolo meel isaga xaris xoolo ma waxaroodaan subax inta qaraab tagaan bay mid geed yuhud cuna iyo mid reer buunsho ka soo xada iyo mid xala canteela bareed cuna xoolo waaba shaqo tagaan waaba iyaga aqligi marka u wareegaan isleeyahay kuwaani wax ay kala garanayaan malaha arinta maciishada maanta meesha ay marayso horta waa ka hadli doona shirkii garowana waa ka hadli doona iyo waxyaabii ka dhacayo qosolka meeranaha maxaan ku yiraahdaa dadku waxay aad iyo aad iyaguna u raadinayaan nimankii la qabtay dambiilayaasha ah oo maxkamadaha waa la saaraya war jamaalo ma been baa noo sheegtay maxaa ku dhacay iyadana waxbaan idinka taabanaya inaan niyad jabtaana ma ahan laakiin de waxa isweydiin sababta jamaal kaliya horta u qayliya oo halkaan uga qayliya maxay tahay sababta dhibaatada jamaal kaliya u muuqata
injineer farxaan waan ku salaamay dhibaatada jamaal faarax hada kaliya u muuqato oo aan ummadda gaalkacyo joogto u muuqan horta waxay tahay waa calaamad su'aal weeye waa calaamad su'aal jawaabteeda dadweynaha laga rabaa Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan jamaal misaga qariban oo cidla ka boodboodaya oo cidla ka qaylinaya maxaa ku raada madad iyagu ku qanacsan waxoodii buu rabaa inuu waxoodu ka dhabqiyo dadku iyagaaba sidaan ku qanacsan fahamsan war ummad waxa la arki jiray hadii lala hadlo oo hadii wax loo sheego hadii kale wax fahamta mase waxa uu qabaa jamaal ba aqal xumo xoolo ahaado qof xoolaha ayaa naga aaminsan yihiin anu garan waaye ma waxa isleeyihiin sandaqada rijiga cagaaran marsan maxaa jamaal uu ag fadhiyaado afraadkaas live uga soo galaya miya isleeyihiin oo kaamirada iyo alaab qaadan waaye jamaal ma lacag baasta oo kaamirada ku gato lacagta idinka haysatiin kuwa reer Yurub waxay yiraahdaan jamaal meesha naga soo qurxiyo in alaab inta dahaye xiratid kaamirooyin halka ku rakibo bay yiraahdaan kaamirooyinka lacag baan u haystaa anigu carruurtaydu ama biilku waayo maalin walba taqajir ku jiro maalin walba laga xirayaa meel walba laga xirayaa waxa la leeyahay maxaa ku raada shilinkii Soomaaliga oo maanta shaaha ka gadayay socon ma yaaba la leeyahay ma fahamtay adeer anigu sidaydaas ku shaqaysanaya sidaydaasaan isaga qalqaylinaya ummadana sidaasaan wax ugu sheegaya waxa laga yaabaa markii aan 100 maalmood wax u sheegaba 100 maalmood magaranaysa markaan wax u sheegaba in ilaahay mid xaq fahamsiya laga yaabaa 100 maalmood markaan wax u sheegaba in ilaahay mid xaq fahamsiya ilaahay inuu mid xaq fahamsiya laga yaabaa oo midkaasi uu maxaa ku raadaa in uu xaq dir noqdo sidaas laga yaabaa marka dhigi ilaahay waan samee bal anigu waa isaga wadwadayaado waa isaga celinayaado waa isaga sheegaya waa intaas ay wax fahmaan marka waa idin kala hormarinaya horta magaalada gaalkacyo waxa ka taagan kii hoose baqti baa ka taagan kii hoose baqti ha quraacan ha qadayn ha cashayn baa ka taagan aniga intay ugu soo noqdaan hadda ii yimaadaan beeraadaan war jamaalo shirkii Soomaaliga maxaa warkiis la sheegay shin Soomaaliga ma la qaadanaya maxaan ku raadaa dawladdu maxay damacday wixii waan la ka gadan waay anu ma dawladdan ka mid ahay ma lacagta Soomaaliga baan anigu u diiday ma ana irid diida ma ana ka xanibay ma aniga ka mid balaayada u tashatay miya anu ka mid ahay bal waxay aniga lacagta iga weydiinayaan maxay tahay anna ballan baa ku qaaday koob shaahir aan kaga gadan hal la wada jabo maxaa iga kii galay idinka jabka diiday inaad wax ka qabataan burcad belada in haysta idinka diiday inaad iska qabataan maxaa aniga kaliya ay wada bal waxa aniga kaliya iga qaylsiinaya hal ii sheego gaalkacyo islaamii waa soo adeegan waayeen saakay gabar baa soo wacday war jamaal shilinkii Soomaaliga ka war shilinkii Soomaaliga dhimay baan tacsidiisi baa la dhigaya hadda gaalkacyo sheeka waxa ka socota niman lacagtii Soomaaliga daabulaya sariflayaala oo xataa iyagii baa sirti kala qarsanayo qayb baa qandaraas soo qaadatay dadkii bay lacagtii ka aruurinayaan keena sarif bay kaga aruurinayaan cirkii ay ku dhijiyeen bay kaga aruurinayaan 58 60 bay kaga aruurinayaan kullina waa ranayaan jawaana lagu cabaynaya boosaasa loo wada tolo boosaasa ma lagu gubi doona anu waaba garan waaye magaaladii ay taalena waa la diiday in laga qaato hal shilin oo Soomaaliya laga qaadanaya ma jiro hal shilina laga qaadan mayo kulli waa la daabulaya anigu waxaan u malaynayaa waxaaba meesha taagan masiibo rabbaaniya meesha ka dhacday baan u aaminsanahay sababta ummad bilaa damiira ummad danteedii garan weyday ummad meel ay u socoto iyo meel ay ka socoto aan midna la garanaynin hooyooyinkan caqday guryahan loo qaaraamanayo maxaan ku raad hadii loo qaaraaman lahaana markay dacaan wax diraan wixii ma wadirsamayaan waxa dhibaatada meesha ka taagan ilaah baa waad yaabaysa gaalkacyo waxay u baahan tahay maanta ummad kale in lagu keeno ilaahay u keene kuwa maanta jooga kuwa xaq garanaya kuwa dadnimo garanaya kuwa wax fahmaya ma kuwa baayo hoogay weeye waxna gadan waaye waxna garan waaye waxna qabsan waaye wax u taliye iyo wax ka taliyana midna waa la waaye gaalkacyo horta halkaas ay maraysa kaligeedna maaha waa Puntland oo dhano jamaal bay ku soo cararayaan war jamaalo maxaa haysa anu ma waxaan u ahay baalkii afayeen baa idinku ii doorateen ana isu cimaamaday ana iska dhigay anigii baad haddana cay iyo daro iyo waxa idila fadhidaan maalin walba maxaan ku raadaa inaad wax ka sheegtaan oo fadhiyaan mid yiraahda jamaal furaanad buluugu soo gashtaa mid yiraahda jamaal kaamara ma wata miya maxaa sandaqada ag fariisiyay mid maxaa yiraahda maxaa maalba uu soo qeynaya u hadlaya fahamsa hadda anuguna waxa isleeyahay bal intaas mid kaliya damiir laga helaaday bal iska hadal baan soo jira anigu xaraga marakan kuma jirnay waxaan ku jirnaa nafl caari baan nahayo waxa weeye masku hadii madaxa laga dilo waxa
maxaa dabada dambaa firiglayso maarta wareegtaa la yiri halkaasay maanta naga maraysaa sicir barkii cirka ayuu ku dhigay kii rootiga gadanayay rootigiisa $1 buu ka dhigtay biyihii saxarada galaaska ahaa 0.005 baa la yiri ayadana waaba shubmi weydo ma dirsamayso meelaha qaarkood waa ka dirsamaysaa oo ma naqaan anu khiyaamooyinka meelaha ku jire markaad golis xagga u dhaaftay lacagtii waa dirsamaysaa oo 0.1 iyo 0.2 iyo kulli waa dirsamayaan dhinacan markii la soo aado waxa loo wareegayaa meel la yiraahdo hormuud baa loo wareegayaa laga dirdiraya balaayo dhan ba isku qasaro waa meel khiyaamadu ay cirka sare gaartay weeye ma fahamtay ballan baa meeshan ka socon oo waa meel ballantii laga baxayo waa meel aan qiimeyn ka jirin waa meel aan isqadari ka jirin dhibaatadaasi waxay ka taagan tahay Puntland bay ka taagan tahay gobolka mudug isagu barasha ma balaha gobolada kala la qaataado inkastoo garow maadada mudaharaad la yiraahdo ujeedada badan aanu mudaharaadkaas ma taageerin oo ujeedada badan ma orkayo halkii buundo oo nasoo gudbi jirnay oo garow oo noogu taalay halkii buundo dadkii gubayay oo maxaan ku raada qoryaha iyo balaayo ku shidayay oo fiidiyooga laga duubaan arkayo kuwa waxaan maqlayay leh qoryaha dabka ku shid gub kuwa leh baan maqlayay bal biyay ka gubayeen kuwaasi wadaniyiin ma ahayn reer Puntland ma ahayn waxa sameeysan gardarada iyo magaalada ee darada ka daayay oran lahaa gardarada iyo darada hadii meel kale ka soo abaabilo barwaaqadu idin ka dartayna hadii waa la iska qabanaya runtaana idin sheegaya kaasoo kala banaan bax ma ahayn maciishada hadaa ka qaylisan idinku halka marya oran kartaa war wixii aan ugu qaaliyoobeen war lacag baan wada dhigi kartay laakiin buundadii garow waan jabinaynaa maxaan ku raadaa meelihii laamiga oo umada sugu meelso bilicda magaalada burburinayna taas ma ahayn wax la qaadan karo aqal xumay ahay taas cidii garanaysa taas maciishada aan kaga baxo halkaas aan ka aado nimankii waxaan ku xijinayaa shirka garow waa u dambaysiinaya nimankii halkaan maxkamadaha la sugay oo aan ayaantiro inii sheegay in la yiraahdo Jamaal waa beenlow Jamaal waa been baan waqti ma ahan waxbaan inii sheegaya meesha tan waxa ka socda waa wax loo bogi karayo weeye waa wax maxaan ku iraadaa inaad ogaataan loo baahan yahay kiisku markuu maxkamada hor yaalana wuxuu qaadanayaa waqti haniyad jabinina ilaah baa ognaa kuwa la deynaynin subax dhowba sidii ari weer galay oo kala qaaqdooda wada maqli doontaan hadii Allah awood leh ogolaado taana ii sheegay anaanba wax kale weerdiyeysanayno indhahaygu meel kale uma jeedaan ciidanka meesha jooga oo taliya muumin oo taliyaha ka yahayna ku kalsoonaada fahamsan ku kalsoonaada nimankaas maxkamadii waa la keenayaa abaalka ay leeyihiin waa laga waraabinayaa kii dambi lagu helana dambigiisa waa lagu qaadayaa kii maxaan ku raadaa la qabtay oo la yiri intuu balaayo baxsatay noqon lahaana miskiin maxaan ku raadaa lagu dambaabo hadhow la yiraahdo kuma jeedin iska raalaho la yiraahdo ha noqdo isagana waa la sii deynaya wax dhiga ma jiraan laakiin inaan la deynayn inay safakan in la hayo markaanti anaan waardiye ka aha oo mar walba ka warqaba ciidanka iyo amniga ku kalsoonaada meesha jooga taa ku kalsoonaada intaas waa intaas kuwa badan baa iga soo weydiiyay meelaha qolyahan waxaan ugu daran Yurub iyo maxaan ku ka soo hadla Mareykanka iyo Carabtaas iyo maxaan ku yiraahdaa meelahaas alla markaan war sheegayo dadku soo dheereeyeen marka kalena dhaga adag ka marka anigu warka akhrinayo dhagan nugulayo soo rasa badanayo Jamaal soo oo soo rasa badana marka anigu iyaga wacana tareena hoostooda la marayo fuulshana COVID-19 baa guriga ku xareeyay maxaan ku yiraahdaa shido dhan baa haysata qolyahaas waa qolyo la dheeryaal banaanka wadamadaas dibadaha jooga shirkii garoowe oo ah mawduuca ugu weyn horta ilaa iyo maalintii aan shir iyo waxa Soomaali lagaga hadlayo aan fahmay oo aan dhaweyn mar fog ahayd wuxuu ahaa shirkii ila yaabka badnaa buu ahaa weesidina macna asoo kumbuleedaan barwaan ma biyaala weesida zio xogaha shirkii ila yaabka badnaa buu ahaa anigu haddaan ahay dadkii meesha isugu tagay ilaah baa inaan shirka ka qayb galeen oo aadeen waayo shir xigmad la ma ahayn shir xigmad leh gabigiisoo ma ahaynba waxay ahayd hebel baa markhaantiga kaaga maahay adaana khiyaamay kuma khiyaamin
adiga sidaan la yeelay kuma yeelin war hebel baa markhaantiya kumaahi iyo war meesha anaga nabadoono ko hawsha soo dhamayran inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ciidamada gada lagu daabulaya madaxweynuhu wuxuu tagi waayay meesha la yiraahdo maxay ahayd ay sheegeen national theatre ki tagi waayay laamigii buu goyn kari waayay adigu waa taad taliyaan madaxweynaha u ahay maxaa wuxuu dhanba waxay hayaan wax khiyaali umada lagu jiray heritage-na hay'ad mashruuciyadeeda qaadato iyadu hadda dawlad bay qandaraas weyn ka soo qaadanaysaa qandaraaskeeda markay soo qaadato bay meel ay inta ku burburiso waxay rabtaa boqolkiiba 30 dadkaas lagu casumayaa la siinayaa boqolkiiba 70 de waxa weeye waa jeebkeeda weeye bal ilaahay ma ku dhaarshay inta halka ummad isugu timid waxay ku qadeynayeen dollar oo waxay ku qadeynayeen quraac da ku cunayeen dollar oo waxay ku casheynayeen dollar dadkii Soomaaliyeedna gaaja baabiisay dhaqaale xumo baabiisay maxaan ku raada meel ay ku noolaadaan bay waayeen sicir barar baa lagu riday shilinkoodina waa laga xandhibay war ma weysan hatta mid kaliya lacagta sicir bararka soo qaaday laguma arag cuqubada inta laga umada laga galiyo shir aan lagu soo qaadin buu ahaa dawladnimo Soomaaliyeed baan looga hadlin gabigiisuba wuxuu ahaa eed iyo tirsi buu ahaa eed iyo tirsi buu ahaa anigu markaan arkay kuwa meesha isugu yimid hal mid oo mid dhaam laguma arag وإن الله لا أنتي نسول لجويسي بأحد إن الله لا أنتي لجوية الصومالية بدي عم بيشع سقوط بيد إن الله أنتي صومالي دبعتين تبع سقوط بيد إن الله أنتي وارلورس أيه جامي كحد هبا سقوط بيد قليل مدحوين ياشها أو معمولة وحي جارين اللي هذا ور إنه مدحوين بإسكدين قار وحي إليهن شعبك وحمقوجا أنا جا وحق أوت مدحوين ياشها إنه ماشى أشوجا سقوي بيد أنا قلت يا إجوين قرقر تلو مجوي هاي أحمد مذوب مجوي هاي دني إجموينا نكل هذا دني إجموينا أنا أقول شيء وقال العقبة هي كلمة والله بس نجوينا دني وقال العقبة هي مفهمسة واحد كليهن شعبك وحبم أوجي أنا جاوح أو كالي ما مركز ماشي كرسي فوشين بعد إذنك وحوجاتين شعبك وحوجان واي صوتين هشترها شعبك إصلاحي هذا أنا مركز شعبك هيدين oo idu waxba ogeyn anagu waxba la ogeyn sababta wariyaal baan ahayn siyaasiyiin aydan la kulmi karino warigiin agtood ay teegrin baan wallahi anigu la kulmay qorqor iyo dani iyo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe iyo markaan anigu inta tayga saac u xirto aan Yurub ka degayo Dan baa ka degayo Sweden ka degayo Bakiin ka degayo aan la kulmay boqolaalka madaxweyne la kulmay anoo madaxweyne Cabdullaahi sallallahu alayhi wasallam la socda idinku baad xagee joogteen ii sheega markaan siyaasad baa ku jirteen إيش بركاز محاد أوجيدين يا هذا بهاشان فضلا تا أو العقد بايديسي أشياء كرسي فوشار كرسي قارو كرسي شمال كوها بورابها سوت تسيها مدحوينيال تربى الله صو كل ماي أنا مدحوينيال تربى الله صو كل ماي أنا ميلاسي أصلا لو كركري أركي إذوك بهاش هذا الله كان قادين هدير بالله كان قادين مفهمت والله بين السياسة إجابة هدير بقى نين السياسة إجابة دي أمتشرو وحوي بهاشان labadii nin oo walaalaha maxaa leeyahay midkii lacag laha weynay leyla hees bay ku jirtay adeer reer lacagta meesha in geysay amba hadaan lacag hays ilaahu ya sabbiyo maanta 20,000 oo jawaan oo dollar ya cirka iga soo rida 20,000 oo jawaan oo dollar haduu cirka iga soo dhici lahaa markaas aynu isugu iman lahayn booska sababtoo ah xildhibaanada la soo dooraraya boqolkooda ku baan u dhiibaya markaan boqolka u dhiibana مبدأ الله يقدر مايو وحكلا الله يقدر مايو إن محاكو في لفيرين مايو وحلا أرانا يا متغنى وحلا أرانا يا عطك يا سيسي جمال فارح هذا بانصين جمال فارح هذا بانصين هذا أنا واكحشون لها سيدين إن أنت مبيل صوفر سيدا الشعب كوح مؤجي أنا كريا واكحشون لها عيدا مدي بقى لو قد أبوليا عيدا مدي بحالك لوريا مدحويني بحالك الفردية وروحاسب ما هذا البا بيش أنا وحنا كرمنا دانتا الصوماليات محيطها دانتا الصوماليات محيطها سيدات دور شلو جاري كريا قرشة أتصور دكتين أو ماشى نوجا مغضب متشرينه لا بني بوحير هذا أنا جاهوش أو حل سهران أنا جا سوق بناينا أنا أو هاي شركة ما شركة مركب ودن لي ستبد بوها هرتيجنا وأوجا شيء قبل وحركة السؤال أدق الدينية نمكاس هذا سؤالها نكري أو سصح أو جوابية لقوا ما أرق شركة مركب ما أهين شر دان صوماليات لقوا هيو ما وصلنا هينا وروها شر إسبهايسي إن الله لا أنتي صومالي سول لقويسي أو دبعت هذا صومالي لقويسي هذا يتعمد دجال كسوق هذا
bal eega kuwii ciidamada wadan jiray oo maxaan ku raahdaa halkan soo weerari jiray gaalkacyo soo weerari jiray kuwii maxaan ku raahdaa xamar ka soo abaabuli jiray hubka iyo rasaasta soo dhiibi jiray maxaan ku raahdaa kuwii sicir bararka iyo belada ummadda ku riday kuwii waagi annagu aanu xamar joogno dawladda aanu xamar geynayno oo aanu baydhabo iyo jowhar joogno aan ka hoyan weyno oo ka harsan weyno oo annaga mujrimiinta kufaarta nagu tilmaamay oo xabadda nala dhacayay kuwii xabadda nala dhacayay baa maanta waxay lahaayeen xalka Soomaaliya ka talinayna markaasaan sheekooyinkoodii markaan dhageystay mid walba haddana wuxuu u talinaya oo u hadlaya isaga dantiisa anigii baa kursigay la haystaa maamulkaygii baa la diidan yahay hawlahaygii baa faragelin lagu hayaa anigii baa la dhugdhuganaya waxaan daawaray kuwa wasiirka ka soo noqday Puntland ilaa bahashaaniba xisbiyay ahayd waxaa meesha isugu yimid xisbigii damul jadiid xisbigii ixtisaam xisbigii la oran jiray takfiir xisbigii la oran jiray maxay wixii la sheegay wixii noocaas aha ba kulli maxkamadii islaamiga aha kuwii sheegan jiray maxkamadii islaamiga kuwii sheegan jiray waxa meesha ka hadlayo dhan saasay ahaayeen nin dhifa iyo gabdhuhu kuma jirin iyagu nin dhifa iyo gabdhuhu kuma jirin gabdhuhu xogaa xisbiga ku jira waa jiraan oo magarasa waan ogahay laakiin waa ka xalaalsanaayeen nimankii meesha isugu yimid ma fahamtay waa ka xalaalsanaayeen shirka marka wuxuu ahaa shir loo baahnaa in ajenda la dejiyo qodobo cad la soo saaro war maantayto meel